يو السلام عليكم حلقة وحر دعملان صاحب يال وحاوا هراء وسي سعوننا إن شاء الله كدib marka aragn dhimashadii ugu xanuunka badneed ee soo martay buuga dhimashada oo ahaa el waxaana dilay Shinigami loo yaqaan Reem oo naftiisa u hore si uu badbaadiyo Misa laakiin Reem ogtiin waxa ku dhacay maadaama uu jibiyay sharci Shinigami buuga dhimashada oo buugiis wuxuu ku qoray el magaciisa saxda oo Shinigami way arkaa magacyada dadka oo dhan sidaas daradeed waxa waa magaca doo arka xataa inuu sheego xataa ma ahan asigna magaciisa buug ku qoraba sidaas oogay Shinigami Reem asan jirkiisa wuxuu qanaa caro oo asna waa baaba oo hal xaba kama haraayabo qorshir qoorkaasna waxa ka dameeyay light oo laydo heer wuxuu gaasiyay Misa nafteeda oo halis galiyo oo askarta markale ay qabtaan Reem wuxuu dhahay marka hadeeba qabtaan way bedelayaanba sidaas ogeed caawiyaha elna wuu dilay oo watriga loo yaqaan sidoo kale elna wuu ku xijiyay waxa soo dhan qorshe oo maskax badan waxa ka dambeeyay layda waxaas dhan dabacsanaa laakiin saaxiib yal waxa arkay dad nala soconinba oo maadna ku celcelinaya Ryog iyo Light saaxiibo miya Ryog iyo Light saaxiibo ma aan wax saaxiibtimo kama dhaxayso oo way Ryog markuu Light la kulmaa buugiisa waxa ku soo dhacay adduunka markuu ku soo dhacna waxa waa sharci waxa waa qof bil aadan hadoo qaato qofka bil aadan kaas iska leh Ryogna taas wax kama bedeli karo sidoo kale Ryog wuxuu rabaa inuu Light wuxuu sameeynaa oo arko oo ku raaxaysto kira wuxuu sameeynaayo way Ryog sharci Shinigami u yaal inuu jabiyo maraba sidoo kale wuxuu raba sameey karo waayo qofku ku dhimanayo bis magac buuga ku qoran ayagaba laakiin qofka bil aadan wuxuu raba sameey karo xilliga raba buuga u isticmaali kara Ryog wuxuu rabaa inuu arko Light soo buuga u isticmaalayo oo wuxuu raba ka sameysanayo in maskaxdiisa inuu arko raba oo ku raaxaysto saaxiib ya Ryog waa anugu kala daawadayaal meesha ka yahay oo ku raaxaysanayo waxaan oo dhan arkaayo laakiin si ka hoos bixin Ryog dadka magacyadooda wuu arki kara waayo in Shinigami uu leeyahay laakiin ma sheegayo Light inuu u sheegay maraba xataa magaciisa saxda uu ogaa Ryog laakiin ma u sheegayo sharci inuu jabiyo maraba sidoo kale Light markuu dhul cadeynaya indhiisa guduud ee noqonayo ma aha in Shinigami waayo bis waa shariirnimada ishaadinimada ka muuqato waa lagu muujinayo Light maraba inuu Shinigami inuu isticmaalo cilmigiisna uu haaf ka dhigay maraba wuxuu rabaa inuu si muddo siin oo laada sidaas ogeedo mis u isticmaalayo waa in arinta saas ogaatiin saaxiib yaal hadana faham guud maadaama qaadatay xalqadeen waa si wadayna insha Allah xalqada lixaad ee si fiican u dhigista el sidoo kale watari caawiyiis markay geeriyooneen adduunka oo dhan oo qalqashay sidoo kale Japan oo dhan qalqashay waxay geeriyadooda gaartay guriga ayaga ka soo askumeeyeen qisadooda ka bilaabatay loo yaqaan waydi gurigaasna waa guri la isku keenay caruur agooma ah caruurtaasna hadafka laga leeyahay waxa waa in caruur aqoon badan oo aqli badan laga soo saaro meeshaas caruurtaasna dhamaantood waxa isku keenay waa caawiyaha el watri loo yaqaan sidoo kale watri qofka soo kariyo el soo kariyo watri waaye watrina el xaqiisa wuxuu ka ahaa sidii cunugiisa oo kale sidoo kale caruurta dhamaantood ma wada joogaan waa caruurtiisa oo kale elna walaalihiisa oo kale waaye ayagana waxa soo gaaray geerida walaalkooda oo ninka uu aqal badnaa meeshaas ka soo baxay markaas kadib waxa lagu qasboonaaday in la asaas hadda qof ay el bedelayo caruurta ma joogaan dhamaantood markii la fiiriyo laba qof ay el bedeli karto booskiisa waxayna kala yihiin cunug loo yaqaan Niir iyo sidoo kale cunug loo yaqaan Milo labadoodu waa labada qof uu aqal badan hadda meesha ku sugan laakiin se el azaad uu aqal badnaa waayo el waxa loo doortay ninka uu aqal badan adduunka sidaas ogeey Niir iyo Milo aad u yaabeen waayo macquul ma ahan inuu el guudareysto yaaba ninka ka guuleystay el yaaba ninkaas maskaxda zaidka ka guuleysanayo war ma ogid ninkaas nin kiral ahay waayo wallahi Light maskaxdiisa ogaaleedina ma ba hadli leeyahay markaas kadib waxa leeyahay labadiina mid el lagu bedelaa ama Niir ama Milo sidee u badan tahay Niir lagu bedelaa waayo Niir aad u agdhow yahay el asaab maxoogaa ka dhow ama maxoogaa maskaxdiisa kala leh markaas kadib daawade oo 4 sano wuxuu qaatay Kira wuxuu warba oo sameeyay oo dadka qofka warba saas u baabiinayo yaana Light kor istaagayo xukunka adduunka oo la damacsan yahay Niir ma kor istaagayo mise Milo waa arki doonaa daawada laakiin maskaxda dagaalka wali ma dhamaanin maadaama el wax ku xiga ay bajiraanba Kirana xukunkiisa adduunka la damacsan yahay qalqiil ay gali kartaa muhiimadeena marka u salaabana Light ma koona qad ninka cadaalada adduunka oo dhan u sameeyay ay dadkan ay jeclaadeenba waxay dowladda Japan ku qasboonaatay taliyaha guud ee ciidanka oo dhan inay ka dhigto Light aabisa Yushiro Yagami markii Japan loo fiiriyo asiga uu qoran qofka Kira ka hortagi karo Kirana waa la ogyahay inuu Japan ku sugan yahay waayo el soo saaray sidaas ogeey dowladda Japan markay el ay waayeen waxay ku qasboonaadeen in ay lugooda ku raadiyaan Kira laakiin daawada hal dowlad maxay ka bedeli kartaa Kira qaaradaha oo dhan xeer wuxuu gaaray 4 sano oo Light wuxuu raba ka sameysanayo Americanka iyo wuxuu raba amarkiisa ku soconayso adduunka oo dhan Light xukumo wuxuu noqday qof adduunka dhan uu argagax badan sidaas ay tahay Light wali waxa uu soo dhiman hadafkiisa waxa wali ma gaarinba wallahi ma xad macsan tahay ku dhiman waxa rabta adduunka waaba ka sameysabay hada adduunka afgambi ku sameynaysa ma Americanka iyo sidoo kale Israa'iil Yahuud ma afgambi ku sameynaysa ana booska hada ku jurla taas sameey lahay Light laakiin daawada waxa ka yaabinay oo shoog ay tahay Light wuxuu noqday dambibaaraha labaad oo hadda kiiska Kira asii lagu wareejin karo soo saari karo Kira waayo maadaama el geeriyoodo shaqadaas waxay farta ka saareen Light asiga uu aqli badan oo soo saari karo kiiska Kira wallahi Light cawaanta wuu duqmeystay wuxuu rabo ka sameystay asiga hadda dambibaaraha asida soo saaray asila dambiyaasha sirtiraayo dadka ogna waa aniko daawadayaasha iyo sidoo kale Ryog iyo Misa cid kale og ma jirto wallahi Light caadi ma tihid Light jaamacadiisa wuu dhameeyay hadana shaqadan oo abiisa garab ku siinayo oo ku caawinaya laakiin waa shaqadii u baahnaa oo lagu shakineeyay oo maskaxdiisa adduunka oo dhan wuxuu rabo ku adeegsanayay shaqadiisa labaadna buuga mujrimiinta magacyada lagu qorayna waxa heesamisa oo Misa hawshaas kala wado wax dhan guriga ku kala wadaba amarkan waxay ka socotaa Light Misa waxay sameynaysaa oo kaliya Light wuxuu ku amro Light ya ka shakinahay hawshiisa oo dhan way kala socotaa muhiimadeena marka u soo laabana wasiirka dowladda Mareykanka wuxuu go'aan ku gaaray in Niir ka dhigan dambibaaraha ay garab siin karo in Kira gacanta lagu dhigi karo oo ku caawin karo in Kira gacanta lagu dhigo sidaas ogeey dowladda Mareykanka Niir wuxuu u sameeyay urur dambibaarayaal ah loo yaqaan CIA sidoo kale ciidamada FBI xataa waxa lagu amray in Niir wax walba u baahan yahay
garab ku siiyaan awood iyo ciidan ba ha noqoto waayo kira khalad weyn oo ka gala Mareykanka wuxuu rabaa inuu qaladkaas ay ka arsadaan halka daawada Milo oo ciidamo gangsteryaal oo mafia oo madax u noqdaba labadoodu waxay damacsan yihiin wadadooda gaarka inay kira gacanta u dhigaan wallahi waxay rabaa inay u aaraan Milo wuxuu ogyahay buuga dhimashada hadda gacantooda inay ku jirto askarta Jabaanka markaas kadib wuxuu leeyahay taliyaha saraakiishooda dhan ciidamada dhan gacanta ku dhigaaba aba soo afduubana Milo wuu ka dhabeeyay wadankooda intuu tagay taliyaha saraakiishta ciidamada oo dhan Jabaan oo soo afduubtaba wuxuu leeyahay buuga dhimashada waxa ku sheegaysiin oo kira adeegsanaya qofku hadda gacanta ugu jira ii sheeg muhiimna maahan inaa ii sheegto waxaana hadalkaas ka rabaa taliyaha guud dambaaraha Yushiro Igami oo asiga ii sheegaba Milo Yushiro Igami wuxuu u sheegay taliyaha saraakiisha guud inuu gacanta ku haayo oo xorba ka sameeysan karo wuxuu ku leeyahay balaayihii indhaha yar yar adduunka oo dhan wax argagax ku rido waaba adinkaba qofka kira lahaay adinkoon u dhex jiraa ee taliyihiina dad naftiisa jeceshiin waa ina buuga dhimashada waxa ku sheegaysiin inaa ii keentiin laayna arinkaas buka hore ka maqlo horeba ka dilaaba taliyaha saraakiisha guud ciidamada Japan wallahi layd wajhi malahan laakiin Milo wuxuu leeyahay taliyihiina badileysiin miya qofka kira oo yaan waa qarinaysiin hadiiba taliyihiina aabadisheen Yushiro Igami adaa gabadhaada ka afduba si buuga u helo war layd walaashiisa waay Yushiro wana xayaah gabadha ma loo afduubana Milo wuu ka dhabeeyay wuxuuna dhahay gabadhaada hadda rabtid buuga dhimashada hadda ina ii keenta hadda misemaho waa dhimanay gabadhaada Yushiro wana highlight wada kala meest inuu walaashiisa soo badbaadiyo wuxuu qasboon yahay inuu buuga eegeeyaan layd walaashiisa mudiri kar waayo wuxuu rabaa adduunka sameeynaa inay walaashiisa xataa ay aragto Yushiro Igami wuxuu leeyahay ana gabadha soo badbaadinaya buuga u geeyahay adiga meeshina ii jooga laydna asiga marba in buuga loo geeyo wuxuu ka baqa buugiisa inay isticmaalaan sidoo kale shuruudo fiiga ku qoran hadoo shuruudaas Milo ogaadin waxa waa dhibaato kale noqonay markaas kadib daawada layd xaruntooda laga soo waca oo askarta Japan oo dhan waxa la leeyahay magacaaga layd Igami soo ma ahan xarunta askarta ma joogtid magaceegu waa Niir waxa ahay qofka bedeli doona El waxaana ka socdaa koox loo yaqaan SBK oo Mareykanka u shaqeyso shaqadeena waxa waa ina kira gacanta ku dhigno laakiin hadda adaa ku caawina war layd wuu naxayaa makaale El kalma ay soo horbaxine El abaqati billahi ka tagnaayay ninkan isku sheegay booska ila bedelay wuxuu yahay wallahi layd waa la soo galay lama nino caadi ahina helay Niir wuxuu leeyahay hadda kira hay dambe laakiin gabadha sababta usoo badbaadina kugu caawinaa waxay tahay buugas dhibashada u baahanaa wax ila ka ogaano sidaas kugu caawina garaba kugu siinaa markaas kadib Yushiro Igami waa baxa diyaar u raaca si oo u aado meesha ay ka joogaan laakiin daawad waxay ku balamayaan dhul saxara ah dhulka saxarada markay tagaan dhul hoostiisa meel yariisa furmoosaba sababtay saas u sameynaa marban kaamira kor qabato waayiga ayaga maafiyo waa Milo wuxuu hogaamiyo maafiyo waana gingistro laakiin Yushiro Igami markuu gudaha u galo buuga dhimashada soo dhiga gabadhan ayadoo meesha ku jirto ka soo badbaadina ayaga markaas daawad buuga dhimashada gacanteeda ku dhiganaysa saaruq ku fakanayaan layd waa naxay wuu argagaxay layd wuxuu sameeyay garmaaya markaas Milo wuxuu sameynaa daawad wax aala yaabaysay ciidamada SBK dhamaantooda baabiina oo Niir u shaqeeyaan Milo kira kiligiis ma lixi faartimo sidoo kale Niir maraba inuu qabto booska El markaas kadib daawad waxa soo baxay Shinigami asig dhan fulxumaa wuxuu u tagay boqorka Shinigamiga oo dhan wuxuu leeyahay buugayga dhimashada ma arkooy maxaa dhacay Ryoga iga qaatay muxuu saas u sameeyay Shinigami boqorkooda wuxuu leeyahay taas ma dib leh Ryoga wuxuu joogaa caalamka bil aadamka buuga ka soo qaadano markaas wuxuu leeyahay waayahay boos anaa ka soo qaadanayo markaas daawad Shinigami inta soo baxo uu tagay Milo wuxuu ku leeyahay buuga Ryoga iska leh waa buugiga ka soo qaadanahay sida buugan uu geeyay keena ciidamadiisa isku dardardo Soomaali waxay leeyihiin maxaa bahalkan hortaagan Shinigami wax dhan u sheegay buuga dhimashada iyo Shinigami xogta dhan oo siina markaas dib waxay ogaanayaan shuruudaha oo dhan wuxuuna u sheegay shuruudaha buugan ku qoran yahay dhamaantood inay figiin waxba kama jiraan Milo wuxuu leeyahay maxaa itiri Shinigami afsala calee maxaa itiri ugu soo celi shuruudahan wax ka jira malahan Milana asiga waa maskax badiya isla markaas wuxuu fahmaa buugan in lagu shirqoole El oo dadka dambiyada dusha ka saara oo u qaadmaan sida Misa iyo Light waayo El Light wuxuu ku cadeeyay inuu kiriya sidoo kiraha labaadna wuxuu ku cadeeyay inay Misa tahay laakiin El waxa wariiri waxa waa Light shuruudaha oo sameeyay oo shuruudahan feega ah Shinigami wuxuu leeyahay buugan shuruudaha ku qoran dhamaantood wax kama jiraan waxa maleeyahay inuu Ryo ka dambeeyo Ryogana buugan asaas kale laakiin buugu asiga heesta buugayga waay shuruudaha buuga dhimashada ku qoran ma aan shuruudo saa u adag waa shuruudo iska fudud iska kooban wallahi Light marka si dambeeyay halistiisa waa si badan oo Light waa la fahmayo waan isku furoosa xogtiisa laakiin Light wuxuu rabaa buugiisa inuu soo cishto soo u sameeynaa maskax aan caadi ahayn oo daga Light mise wuxuu ku leeyahay mujrimiinta dhamaantood xogtooda hayso waxaan ka rabaa mindha Shinigami inaa u adeegsatid wada aragtay mid aan magaciisa ku qornayn waxa cadaanaysa buugayga dhimashada inuu taabtay sidaas awgeedna ururka oo walaashada afduubto ka tirsan yahay misna sida Light sameeyay isla markiiba waxay arkeen in meesha magaciisa ku qoran yahay laakiin cimrigiisa ku qornayn aydan Light wargelinay Light isla markii buuga dhimashada ninka magaciisa ku qoraa buuga dhimashada wuxuu siyaa ninka xogtiisa oo dhan iimaha ku sugan yahay buuga dhimashada kaliya wuxuu ka rabaa ninka wajigiisa inaad taqaanto iyo magaciisa inta kale asaa ku dhabasiraayo war ninkan muxuu yahay Light muxuu yahay war ninka maskaxdiisa ku raaxistay maxaa maskax adduunka lagu qabsan karaa leedahay Light laakiin daawada qorshaha Light meeshan kuma eka wali qorshe weyn waay perfect qorshe oo haya Light Misa interior inta isku wuxuu ku leeyahay Ryo idhigeyso buugay markiiliis hadda ka bacdi miihi aniga waa ogaay inay qasabtaa sida hore in xusuusta iga masaxday marka buug dhimashada markiiliis iska dhaafayo sidaas ogeed Misa buugay dhimashada isticmaala jirkayga ku taabana waxaana jira daawada sharci kala badaa iska dhaafis buugay dhimashada markiiliis sida Ryoga oo kala waxa adeegsan kartaa buug kale oo jirkaaga taabanaya si xusuustada hore ay kaaga masaxmin Ryogana si walba isku dayo xusuustada ka masixi karo waayo jirkaaga waxa taabanaya buug kale dhimasho ah waana buuga Misa ay leedahay Light
markaas bis wuxuu ku leeyahay waxa ku qoriyaa warqada kale marka adeegsato u baahanaysa isticmaali kartid sidoo kale waxaan ka rabaa askarta inaan garab siiso askari dhigto inaan kiraa saxda in aad tahay ana ku dhahay buugay dhimashada marba mujrimiinta inuu gacanta u galo waxa rabaa adiga inaad ka soo qaadin saas ziyaadada garab ugu siina buuga dhimashada meel gacanta ugu jiro oo hadda askarta laga soo celinaya sidoo kale xataa mise garab ku siina soo buuga light oo leeyahay waana riyog buugiisa sidoo kale light buugiisa way laakiin milkiina hadda ma aha light xasuustiisna masaxbis way jirkiis waxa taabanaysa mise buugay leedahay light riyog wuxuu ku leeyahay aniga adiga wax mas dhaafsano sidoo kale wax isku sheegano waxa isku sheegano waa wax qaliil oo kaliya laakiin hadda waxaan ka rabaa buugaaga qofka taabanaya marka uu soo bixaysa in uu sharaxdo si aad qof cusub buugaaga milkiidiisa noqonayo adigana mas aqaana riyog taas maskaxda ku hayso hooshayna wada galna markaas kadib daawada mise askarta isku bandhigay muxuu light halis galiye mise waxay leedahay aniga way kira cadeen saxda u baahantiina anaan la wadaagayo aniga maroo buugay dhimashada mujrimiinta in gacanta u gasho sidaas ogeeda garab nigu siina hadana ma hay ku sugayiin oo dhan xogtooda dhan waa ogahay waana nil wadaagataa laakiin booskooda ninka u taliya hada ayaga ina ogaatid arabti waa ina shinigami isticmaashaa waa ina dhil laga shariyo oo shinigami ah oo buugay iska leeyahay intiina waa ina qof isku soo saartin oo shinigami isticmaalayo aniga intaas aan igu cabiyo xogaa inta kale adiga si dhameystirta adiga dhiitaala oo askarta maafiyada waxay rabaan gacanteeda ku dhigaan laakiin wada kale ma haystay inay dhilkan ay qaataan laakiin light abis wuxuu leeyahay hawlwalin aqyaari ana shinigami isticmaalaya adiga ma isticmaalaysiin oo wallahi light abis wuu saqrxi laakiin light ma kala jeclaba markaas dib askarta dhamaantood hubkooda way diyaarsadeen waxayna ku sugayeen ma ku sugan yahay milo iyo maafiyada oo dhan riyona markaas wuu ka dhabay light abis in shinigami oo haystaa markaas ka bahdi yushiriga wuxuu sameeyay mujrimiinta suuradooda intoo fiiriyo dhamaantood hamar wada dilaa magacyadooda soo muuqadaysa markuu saddex ka dilana saddex haraysa oo milo ka tirsan ayagan askarta wuxuu ku leeyahay gudaha ku jiraan gudaha uu gala askartan awoodooda intii adeegsanayaan gudaha uu galaan laba markay ka dilaan buuga ka soo celinayaan buugana waa la soo ceeshay laakiin light abis dhigtay samcada uu hadlo wuxuu ku leeyahay aab waa inaan ninkaas dishaa booskooda yushiro yigaamina indhaha shinigami milo intuu adeegsado waxa uu soo sawirmaya magaciisa cimrigiisaba waxaynu naxariista u muujiyo wuxuu ku leeyahay isdhiib waxa rabaa lagu sameey karaa buugana ku qori karaa magacaaga laakiin light abis oo nina gadaal ka tooganaya xabaduna ku shaqaa war yushiro maxaa wad doqonnimada fursada ku istawaadili kartabe markaas daawade oo milo intuu button taabto ma hadan qarxina woona ka baxsanaa milona sidaas ugu baxsada askartana buugu way soo cishteen laakiin oo light abis ayaa meesha ku dhaawacmay ku geeriyooday rabo laakiin light abis goobtabka ku soo badbaaday isbitaal la keenaa markaas gudihiisa wiilkiisu ka shaqo qabay Hamad Shinigami ku fiiriyo wuxuu ku leeyahay light wiilkayga dhowr mar waa ka shiga jiray hadda laakiin hadda waxa ii muuqda cimrigaaga iyo magacaaga waxaana xaqiiqsaday cimrigaaga iyo magacaaga maadaama ii muuqda in adiga kir aan noqon wiilgaaga sababtoo light magaciisa u muuqdo daawada waa ogtiin malkiilaha hadda ma ahan light laakiin doqonnimadiisa istubadnimadiisa daawada light abis wuxuu ku leeyahay mil magaciisa qor waa aragtay soo maahan aaba buuga ku qor waxayba u muuqataa kaanama inuu leeyahay aaba dhimashada mikra jacay laakiin ninkaas magaciisa daaba aragtaba magaciisa buuga dhimashada ku qor inta iga dhamantaas ii sameey oo wallahi light maxaa doqon tahay light hadalkaas ma dhihin daawada laakiin ficilku sameeynaya arka markaas gudaha daawada light abis ma ku ogaado wiilkiisa inuu kira ahayn sidaas ayuu farxad ugu dhimanaa laakiin yushiro yigaami waa ka xumahay wiil ma dhalin ubad ma dhalin waxa dhashay malkamoodkaaga markaas kadib daawada shinigami buugis iska lahaa riyog intuu umaado buugis ka qaadana horoon u sii baxa waxaana haray laba buuga mise ay leedahay sidoo kale buuga hadda la soo celiyo oo laga soo celiyo milo waana buuga hadda askarta gacanta ugu jiro oo leeyahay light xasuustiisa masaxmayso waa xasuustiisa wuxuu ku celinayaa buuga mise ay leedahay markaas kadib daawada waxa arkaynaa milo intuu niir u tago wuxuu ku leeyahay wala horta aniga cafi dambiyada ka galay laakiin niir waxa ku sheega xog aniga ka argagaxay adiga ku anfaceysaba wuxuu leeyahay buugaas dhimashada aniga gacanta ku dhiga shinigami ay imaad shinigami wuxuu ii cadeeyay buugaas shuruudaha ku qornaa dhafeega ahaayeen shuruudihii il gacanta ku dhiga buugaas dhimashada ku qornaa dhammaantood wax kama jirin labadaas qof gabarta loo yaqaan mise sidoo kale ninka loo yaqaan light yigaami oo il gacanta ku dhigay oo wallahi halis soo galay markaas niir wuxuu isku xisaabiyay wuxuu la kulmo oo dhan il hor wuxuu kira ugu gaaray sidoo kale niir wuxuu asiga gaar ahaantiisa u haysto ayuu isku xisaabsaday wuxuuna ogaaday light yigaami ninka loo yaqaan inuu kira yahay niir sababtuna waxa waay niir wuxuu ogyahay in laba qof hadda kor inuu ka shaqeeyay gabadh loo yaqaan mise sidoo kale light yigaami sidoo kale inuu ku fasaxay shuruudahan daraadooda oo shuruudahan ay ku fasaxma ma waxa waay ka dambiil la'aan ay noqdeen haddana waxa la ogaaday shuruudii inay waxba ka jirin sidaas ogay niir wuxuu xaqiijistay in light yigaami uu yahay kira waana maalinta kira gudkiisa bii uu soo galay oo wallahi waa gacan gashay nina ku helay light niir gacanta ma ku dhigi doonaa mise light mar kale nin kale maskax badan ka guuleysan doona waxa soo dhan waxa ku arki doona xalqadiina soo socota insha Allah daawada hadda xalqadan ka heshay like subscribe-ka inagu ilaawana sidoo kale saaxiibiya waxaan ogeysiinaa in maalmahan imtixaankayga finalka jaamacadda oo dhan ku mashquulsanaa saaxiibiya laga raali noqo sidaas ogaada waana mahadsantiin insha Allah daawada xalqada kale si degdeg ah u soo dhigi doona oo wallahi light markan waa u dhamaata oo malayha qiyaasaayo